kulan wacan saaxiibayaal waxaan ahay Shoble waxaan idin hayaa warbixin ka waramaysa liiska boqolka ciyaartooy ee dhaqaalaha ugu badan haysta sanadkan. sidoo kale waxaan eegi doonaa warbixin ka waramaysa saameynta sportska ee dhaqaalaha uu ku yeeshay COVID-19. aan gudagalno ciyaaraha basketballka ee Mareykanka laga ciyaaro. qiimeentooda markii hore ka hor cudurkan intuusan imaan imisa ay ahayd dhaqaalaha basketballka markii hore waxa ay gaaraysay ama markaa ay ahayd 1.3 bilyan. hadda waa 1.2 bilyan halkaas oo aad ku ogaan karto hoos u dhac dhaqaale ee basketballka. aanu aadno footballka ama guud ahaanba kubadda cagta. dhaqaalaheeda markii hore waxay ahayd 926 milyan, hadda waa 773 milyan. halkaas khasaare kale ayaa jira. sokorka Mareykanka aadka looga xiiseeyo 613 milyan ay markii hore ahaa, hadda waa 607 milyan. halkaas sidoo kale waxaa ku jira khasaare weyn oo aad u xooggan. tenniska 296 ayuu sanadkii hore ahaa, hadda waa 245 milyan. halkaas sidoo kale waxaa jira qiimo aad u xooggan oo ku lumay cudurka COVID-19 dartiis. ciyaarta feerka loo yaqaano marka hore waxay ahayd 236, hadda waa 278 milyan. halkaas waxaa ka jira qiimo koror aad u xooggan, waana sports kaliya ee marka loo eego aad u kordhay oo dhaqaale xooggan helay, ayadoo inta kalena ay saameyntooda dhaqaale ay leeyihiin. ciyaarta golofka 183 milyan ay ahayd sanadkii hore, hadda waa 215 milyan. halkaas sidoo kale qiimo koror aad u xooggan ayaa jira. ciyaarta tartanka kaxeynta gawaarida 119 milyan ay ahayd sanadkii hore, hadda waa 95 milyan kaliya. tartankan sanadkan lama ciyaaran oo sidoo kale ciyaarihii dhici lahaa guud ahaanba waa la baajiyay. ciyaarta loo yaqaano baseball waa ciyaar yaro u dhow qaabka cricketka loo ciyaaro. waxa ay sanadkii hore ahayd 27 milyan, hadda waa 468 milyan. halkaas waxaa ka jira qiimo koror aad u xooggan. ciyaarta loo yaqaano cricketka sanadkii hore waa 26, sanadkan waa 25 milyan. wax farqi sidaas u weyn oo hoos u dhac ah lagama dareemin ciyaartan. aan gudagalno markaan shantii ciyaaryahan ee dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay sanadkan. dhinaca ragga iyo dhinaca hablaha. lambarka shanaad LeBron James 88.2 milyan ayuu dhaqaale ahaan u haystaa xilligan. 28.2 milyan waxa uu helay qaab mushaar ahaan ah, halka 60 milyan oo isna u helay lacag ka soo gashay dhinaca xayeysiimaha iyo lacagaha abaalmarinada. lambarka afraad waa Neymar Jr, ciyaartooyga u ciyaara kooxda PSG. lacagtu haysto waxay gaaraysaa 9.5 milyan. 75.5 waxa uu ku helay qaab mushaar ah oo mushaarkii uu kooxda sanadlaha ay ku lahay, halka 25 milyan uu ku helay lacagaha xayeysiimaha ee u soo xarooday ciyaaryahankan iyo kuwa kale ee abaalmarinada. Lionel Messi booska saddexaad uu kaga jira qiimeyntan 104 milyan weeyaan lacagtiisa. 72 milyan ka mid ah wuxuu u helay qaab mushaar ah, halka 32 milyan ka mid ahna uu Messi u helay qaab abaalmarinada iyo sidoo kale xayeysiimaha shirkadaha sida gaarka ugu xayeysiiyo marka ay soo dalbadaan. lacagihiisa isku darkana waa 104 milyan. Cristiano Ronaldo lambar koowaad ayuu kaga jiraa marka loo eego ciyaartooyda kubadda cagta ciyaarta, laakiin lambarka labaad ayuu kaga jiraa qiimeynta ciyaartooyda sportska ee guud ahaanba dunida. 105 milyan ayay lacagtiisu tahay, halkaas oo 45 milyan ka mid ah wuxuu u helay qaab markaasi xayeysiimaha uu shirkadaha u xayeysiiyo, halka 60 milyan oo ka mid ahna u helay mushaarka sanadlaha ee uu ku leeyahay kooxda Juventus. sidaas lacagtiisu waxay ku gaartay 105 milyan. booska koowaad ayuu kaga jiraa ciyaartooyda kubadda cagta ciyaarta, laakiin isku darka liiska ciyaartooyda sportska booska labaad ayuu kaga jiraa. hoos u dhac ayuuna sanadkan soo galay. lambarka koowaad waxaa liiskan kaga soo baxay ninka ku caanbaxay ciyaarista tenniska dheer ee Roger Federer. waa markii ugu horeysay taariikhda uu ciyaaryahan tennis dheer ciyaaro uu liiskan uu ka soo galo booska koowaad. 106.3 ayuu haystaa lacag ahaan. 6.3 wuxuu u helay mushaarka, halka 100 milyan uu u helay xayeysiimaha iyo sidoo kale abaalmarinada kale ee shakhsiyeed ee uu helay ciyaaryahanka reer Switzerland. boos koowaad ayuu kaga jiraa boqolkii ciyaartooy ee ugu hantida badan guud ahaanba sportska. Naomi Osaka
gabadha reer Japan ee ku caanbaxda iyaduna ciyaarista tenniska dheer ayaa ku garaacday Serena Williams liiska qiimeynta gabdhaha ay ugu taajisan tenniska 37.4 ayay haysataa lacagta Naomi Osaka halka 3.4 ay u heshay lacagaha markaasi mushaarka halka 34 milyan ay u heshay lacagaha xayeysiimaha iyo sidoo kale lacagaha awaalmarinada koobka ku guuleysatay sheekada xiisaha leh Osaka marka ay dalanaysay 1999kii Williams waxay ku guuleysanaysay Grand Slam tartanka liiraada ee tenniska waa arin cajiib ah Osaka oo Japanesa ayaa hadda ka saramartay Williams oo lagu qadariyo ciyaaraha tenniska ee hablaha halkaan ay ku dhantahay sheekadii la xiriirta sportiska iyo isbedelkii dhaqaalaha ee sanadkan qiimeyntii Forbes